xaflad si qurux badan loo soo agaasimay isla markaana lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Sweden ayaa lagu qabtay hoolka weyn ee Jubba ee magaalada Stockholm. munaasabadan oo khudbooyin kala duwan laga jeediyay ayaa waxaa lagu taageeray madaxweynaha cusub waxaana lagu amaanay go'aankii labada aqal oo ay ku doorteen madaxweyne Farmaajo iyagoo dhinaca kalena u mahadceliyay madaxweynihii hore Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana madaxweynaha cusub ee kula dardaarmeen ka qaybgalayaasha xafladan inuu ka faa'iideysto fursadaha horyaala oo ka dhabayo rabitaanka shacabka ee la xiriira barnaamijkiisa nabad iyo nolol. waxaana guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay ka wada sinaayeen inay u duceeyaan madaxweynaha. ilaahay maxamed farmaajo ha nooga dhiga mideeye, allah ha nooga dhiga mid hoggaan wanaagsan, allah ha nooga dhiga midkii Soomaali ku soo hirato. waxaase muhiim ah inuu doorto tiim wanaagsan. hadduusan helin garbo shimbir baal la'aan ma duulaan, waa kaligiis. Allah waxay suura galiyeen inay ka tarjumaan, u hoggaansamaan, u soo joogsadaan, ay qiimeeyaan rabitaanka dadka Soomaaliyeed. waa guul inoo soo hooyatay oo aan leeyahay baarlamaanka Soomaalidu hididiiladii Soomaalida ayay soo celiyeen. waa meeshii gabaygu oran jiray ee Qaasim noolaatay hididiiladii naxashka saarayda. qor isku dhiibkii ayaa hadda waxa uu maaragtay hogaaminaya ama ku guuleystay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xafladana taageeradaas ayay maaragtay ayay ka turjumaysaa. mar labaad 6 bilood oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan ku diirsanay ayaan hadana Ilaahay ka barinay isagana mar labaad hogaankii marka aan moodayna inuu inoo roon yahay hadda in loogu dhiibay dalkii. marka 4 sano soo socoto waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa iyadan inuu colaadin ilowsiyo oo horumarkan cagta saarno. waxa runtii sharaf iyo amaan mudan asagana madaxweynihii xilka ka degay oo aan lagu aqoonin lagu yaqaano Afrikaanta had iyo goor diida si sharaf leh iyo dimuqraadiyanimo oo xilka u wareejiyay. aan u baahanahay maanta waxa weeye walaalayaal, waa dab isu dhiib weeye, wiilasha ordo oo dabka isu dhiibo kala weeye. dab baa la isu dhiibaya. xasan sheekh meel fiican buu keenay, shariif baa ka horeeyay wuu keenay, cabdullaahi yuusuf waa asna waxbuu qabtay, cabdilqaasim baa ka horeeyay waxbuu qabtay, gidi nin walba intuu awooday wuu qabta. hadda maanta Farmaajo loo dhiibay 4 sano oo soo socota waa inaan Soomaaliya hal ciidan leh, hal calan leh, taas kaliya aan u baahanaa maanta. ugu dambeyntii waxaa goobta xafladan lagu taageeraya madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loogaga dhawaaqay guddiga howlgala sameynta sanduuq dhaqaale oo loogu talagalay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. عبد الرحمن حذيفي راديو هي تلفزيون كقرن كصوماليات ستوكهولم سويدن.